qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida iyo wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen sida tan wuxuu waa isku reeb meel kala kacmaayaan warigood waa wada joogaan waa wax wada dhashay labada reer nabada odayaasha kaga shaqeeya dhalinyarada dhaldheelka ku dhimanaysaana ha maqasho ha maqleen odayada iyo talada iyo nabad ha loo soo jeesto aad culimaadudiinka iyo dhalinyarada iyo dumarka iyo odayaasha yaan loo kala hadhin musiibada xukuumadduna wixii ay wax uga qaban karto aad wax uga qabato dawladdu waxaan jeclaa inaan halkan maxaan ku dhahdaa marka ugu horeysa baaq nabadeed uga diro muwaadiniinta ama beelaha reer Somaliland ee gobolka maxaan ku dhahdaa Sool gaar ahaan degmada Darkeengeeye ee halkaas dagaal ku dhex maray waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka joojiya oo maxaan ku dhahay dadkii deegaanka waxaan leeyahay odayaasha inay nabad ku soo dabaalaan wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto labada dhinacba inta noola ama inta dhaawac ahna waxaan ku dhahay ilaahay ha u fududeeyo waxaan baaq u direynaa labada beelood ee walaalaha dee colaad wiil baa ku dhintay waxba kuma dhashaan waxaan leenahay wixii kasta oo dhaca dee waxa inta dambe in la badbaadiyo baa muhiim ah wixii dhimanayay ee ilaahay qadaray inay dhintaan way dhinteen waxa muhiim ah saacadda la taagan yahay in wixii nool ee dambe la badbaadiyo waxaan leenahay anigu intano kulli xukuumaddu dee ciidamo way u dirtay oo ku dhex jiraan hase ahaatee waxaa la doonayaa in beelihii odayaal dhaqankii iyo golaha iyagu kolley isaguna u xidhxidhanaya imaka inuu tago waxaan leenahay ha loo gurmado shacab iyo dowladba in loo gurmado culayska la saaro dadka walaalaha waxaan taasi u diraynaa intii ku geeriyootay shaqaaqadaasi inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo dhanka kale waxay cambaareen u soo jeediyeen falkii foosha xumaa ee lagula kacay dadkii maatida ah ee lagu laayay deegaamada gaashaamo in ay ciidamadu dadkii ay xukumayeen intay hareeraha iska taagaan aanay u aaba yeelin waayeel iyo culimo iyo caamo iyo carruur aanay u aaba yeelin waa nasiib darro iyagaaba xukumayey waa tuulo ka mida dhulkay xukumayeen maxaa markaa kuwaasu geysteen waa su'aalaannu weydiinayno ninka maamulka shanaad gobolka maamulka shanaad xukuma waa su'aalaannu weydiinayno maxay geysteen dad badan oo carruur loo dumar loo odayaal loo mashaqaa ka dhacdo dhow aadaan dhintaalaya halkaana xukuumaddu ha ka hadasho hawdegdegta oraadiisa xukuumadda ha gaadhsiisa xukuumadda ha la hadasho waxa gacantu ka dhacday baa la yidhi layu bilaysa Ethiopia Cabdikariin Maxamed Somaliland Space Channel Hargeysa